kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey Soomaalida iyo caalamka hadahan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah waare oo maamul goboleedyada ugu baaqay inay heshiiska shidaalka ay diidaan kaasi oo ay kooxda damuljadiid heshiis la gashay shirkad laga leeyahay dalka Maraykanka dowladda federaalka oo shaacisay guulaha laga gaadhay howlgallada Galgaduud Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe madaxtooyada Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay ku biiritaanka Soomaaliya ee dallada bulshada Bariga Afrika qodobada kale ee warkeenana waxaa ka mid ah israsaasayn xildhibaano lagu dilay oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga kaasi oo dad shacab ah xabad lagu furay qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino aynu ku bilowno wararkeena madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si lama filaan ah uga hadlay heshiiska shidaalka ay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud la saxiixatay shirkadda Coastline Exploration Waare ayaa si weyn uga hor yimid heshiiska dhowaan la saxiixay isaga oo ugu baaqay maamul goboleedyada dalka ka jira inay diidaan heshiiskaasi qoraal uu maamul goboleedyada u diray ayuu mudane Waare ku sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid aan daahfurayn islamarkaana uu khaldan yahay oo ay tahay inay diidaan maamul goboleedyadu waa inay diidaan heshiiska shirkadda Coastline Exploration Somali Oil ma buuxinayo heerarka ugu yar ee tartanka daahfurnaanta ah heshiiskan waa khaldanaa xilligii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre welina waa khaldan yahay ayuu yidhi Maxamed Cabdi Waare heshiiskan ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada waxaana oggolaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ay weli ku jiraan mugdi dowladda Soomaaliya wax sharaxaad badan kama bixinin waxyaabaha laga bedelay heshiiskii horey loo diiday xilligii dowladdii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre dowladda Soomaaliya uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixa heshiiskan ku qaadatay lacag gaadhaysa 7 milyan oo dollar oo ay bixisay shirkadda Coastline Exploration dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay oggolaatay heshiis wadaagii wax soo saarka shidaalka Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration kaasi oo uu horey u saxiixay wasiirkii hore ee batroolka Cabdirashiid balse ay diideen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Rooble shirkadda shidaalka ayaa shaacisay inay lacag dhan 7 milyan oo dollar ay ku shubtay bangiga dhexe ee Soomaaliya annagoo taageero ka helayna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana si toos ah u dhignay bangiga dhexe ee Soomaaliya lacag dhan 7 milyan oo ah saxiixa heshiiskaasi ayaa lagu yidhi qoraalka shirkaddaasi haddaba Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah mid isagoona ka fiirsan in heshiis walba iska gelaya arrimahaasna wixii dambe ku soo biira wararkeena dambe ayaad kaga boganaysaan haatan aynu fiirino dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgalladii ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka oo ay maanta kula wareegeen deegaanada Qayb ee gobolka Galgaduud afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Jenaraal Cabdullaahi Cali Caanood oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee laga sameeyay gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe cadowga argagixisada waxay maanta ciidamada isgarabsanaya kala wareegeen deegaanka Qayb oo ah deegaan muhiim ah waxayna cadowgu burburiyeen ceelashii biyaha ee deegaanka iyo xarumihii isgaarsiinta oo ay dadku isticmaali jireen ka hor inta aysan ka cararin deegaanka ayuu yidhi Jenaraal Caanood afhayeenka ayaa sidoo kale ka hadlay howlgallada Hiiraan wuxuuna sheegay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku ay shalay dagaal xooggan argagixisada kula galeen deegaanka Miiraa'ir ee gobolka Hiiraan wuxuuna sheegay in dagaalka kooxda looga dilay ilaa iyo 6 xubnood iyadoo ciidamadu ay la wareegeen deegaankaas oo hoostaga deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan dhinaca kale afhayeenka wasaaradda difaaca ayaa ka hadlay howlgallada xoreynta deegaanka masaajidka Cali Guduud ayaa sheegay in halkaasi ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku guulo ka soo hooyeen deegaanka masjidka Cali Guduud waxaa weli ka socda howlgallo lagula dagaalamayo kooxda argagixisada waxaana halkaasi ka socda dagaal iyo duqeymo lagu beegsanayo cadowga argagixisada wuxuu deegaankaasi ahaa mid muhiim u ah kooxda argagixisada waxayna canshuurta uga qaadi jireen
gaadiidka isaga gudba gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe, ayuu yidhi Jenaraal Caanood. Wuxuu sheegay inay argagixisadu deegaankaasi ku mitidayaan oo ay doonayaan inay masjidka Cali Guduud ka difaacaan degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee gobolka Shabeellada Dhexe. Haatanna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dardar gelinaya qorshaha ka mid noqoshada Dallada Bulshada Bariga Afrika ayaa maanta madaxtooyada ku qaabilay xogayaha guud ee Dallada Bulshada Bariga Afrika. Madaxweynaha oo xogayaha la wadaagay siday Soomaaliya uga go'an tahay dhammaystirka dhammaan habraacyada muhiimka ah ee ka mid noqoshada dowladaha ku bahoobay Dallada, ayaa faray in 12 bilood ee soo socda lagu soo gabagabeeyo qorshahan si ganacsatada Soomaalidu fursad uga helaan ka qayb qaadashada horumarka dhaqaale iyo isdhexgalka bulshada gobolka Bariga Afrika. Waan ku faraxsanahay inaan halkan soo gaadhno, waxaana rabnaa inaan muddo ku siman 12 bilood lagu soo afmeero heshiiskan, si dadkeennu dhaqso uga faa'iidaystaan fursaddan ganacsi ee ka jirta dalalka ku bahoobay isbahaysiga. Waan ku kalsoonahay in dadkayga hibada ganacsi uu leeyahay uu wax weyn ku soo kordhin doono koboca dhaqaale iyo horumarinta Bariga Afrika, ayuu yidhi Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dhankiisa, xogayaha guud ee Dallada Bulshada Bariga Afrika oo Soomaaliya ku bogaadiyay dadaalka xooggan ee ay u gashay inay u gudubto habraacyada ku xusan wejiga koowaad ee qorshahan. Xogayaha ayaa tilmaamay in dhammaan xubnaha Dallada ay diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan ku biiritaanka Soomaaliya ee Dallada Bulshada Bariga Afrika. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xoojinaya hannaanka ansixinta codsiga dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigay fursadda dhaqaale iyo bulsho ay ku tilmaaman yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo doorkooda xooggan ay ka qaadan karaan horumarka Dalladan iyo saamaynta horumarineed ee ay ku yeelan karaan gobolka. Ugu dambeyn, israsaasayn xildhibaan lagu dilay oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga. Inta la xaqiijiyay, 1 qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena way ku dhaawacmeen israsaasayn gegida diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal ee magaalada Jigjiga ku dhex martay ciidanka ilaalada garoonka. Qofka dhintay ayaa ahaa xildhibaan Jawaariya Subcis oo ka tirsanayd baarlamaanka gobolka Soomaalida, balse xubin ka ahayd xisbiga Prosperity Party oo uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxa ayna caan ka ahayd deegaanka Soomaalida. Dadka dhaawacmay ee la xaqiijiyay waxaa ku jira xildhibaan kale oo lagu magacaabo Cabdirashiid Maxamed Gaaruf. Dadka khasaaruhu soo gaadhay ayaa ka dhoofayay garoonka. Madaxa booliiska deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in askari ka tirsan ciidamada ilaaladu uu rasaas ku furay dadka rakaabka ah ee safrayay. Waxa uu sheegay inay wadaan baadhitaan ku saabsan sida ay wax u dhaceen, isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen askarigii dhibkan geystay. Waxa uu sidoo kale xusay in xaaladdu hadda caadi ku soo laabatay. Amniga garoonka diyaaradaha ee Jigjiga ayaa waxaa ilaaliya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya, kuwaasi oo dhibaatooyin u geysta dadka shacabka ee Soomaalida, iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay cabashooyin xooggan ka taagnaayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay. Sidaas iyo nabadgelyo.